ujeedada shirka ayaa ahaa sidii loo heli lahaa sharci iyo weliba nidaam lagu hago sharciga maalgashiga dalka Soomaaliya si loogu guuleysto dib u soo celinta ilaahi dhaqaale dalka Soomaaliya oo meesha ka baxay 20 sano ee la soo dhaafay. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan rugta ganacsiga Soomaaliyeed, aqoon-yahano, khubaro ka socday gudaha iyo dibadda dalka Soomaaliya, wakiilo ka socda culimaa u diinka qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdi Cali Gabayre ayaa ugu horeyntii furitaanka kulanka ka hadlay wuxuuna faahfaahin ka bixiyay ajandaha iyo ujeedada kulankaasi. Soomaaliyeed oo muhiimkiisa ahay inaan maanta wax iska bilaabno waxaan iska tusaalayno talada tusaalana aan ka dhiibano dhammaanteen sharciga maalgashiga dalka oo dhugtiin uusan cid gooni ah uusan u gaar ahayn oo dalkeena dhammaantiis wax kuseeya oo yahay anaga ganacsi ahaan waa soo dhaweynaynaa sharciga maalgashiga dalka sababtoo ah dalku ma horumari karo haddaan loo helin mid maalgashata dalkeena oo gudaha iyo dibadda labadaba ah maahan marka wax gooni ah ganacsatada keliya waa wax dalkeena oo dhan kuseeya oo dhammaanteen aan isleenahay waxa la maalgashan doono iyo waxa la wada rabi doono iyo waxa la rabo in wax lagu wada helo wax ummadaan ay wada leedahay dhammaanteen marka taladeeda waxaa wada le dhammaanteena wada le inaan iswada toosino inaan tala fiican nagu soo baxnaan insha allah haddii la yidhaahdo kan mid ka horeyaan qabanay oo aan tala ku siinaynay xildhibaanada ayagoo ururada saaba kala duwan ay hore isu arkeen maantana kii hore waa uu ka ballaaran yahay umaraa isugu timid tacliimiinta dalka isugu timid ururada bulshada isugu timid culamaa u diinka isugu yimid ururada haweenkaa fadhiya cidna kama maqnaa dadkii aan isleenahay waxaan talanka galaa barnaamijkaas waa mahadsantihiin anigaa fataahay doodhow dhexda ka dhalan doontaa qaar ka mid ah khubaradii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa soo bandhigay macluumaad ku saabsan ahamiyadda uu leeyahay in maalgashi lagu sameeyo dalka waxaana ka mid ahaa qodobadii ay soo bandhigeen ugu muhiimsanaa in maalgashiga shisheeye uu qayb ka noqon karo abuurista fursado shaqo, sare u qaadista dhaqaalaha dalka iyo in shirkadaha iyo ganacsatadu ay ku tartamaan dalka Soomaaliya taasi oo ka qayb qaadan karta horumarka dalka. Agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdi Abshir Dhoore oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in shirkan uu socon doono muddo ku siman 2 maalmood kadibna la soo saari doono warmurtiyeed ku saabsan natiijooyinka kulanka ka soo baxay. meesha cilmi baa la isku dhaafsan waxaa loo dalgeli doon mustaqbalka Soomaaliyeed ayay samayn doonta ma 2 maalin buu socon doonaa dawladda joogtiina meela sida uu qoran yahay oo socon doonaa wax laga bedelayo sidii badan loo joogaa qoyaalada loogu wacay waddanka gudihiisa janaba la joogta qaarkood oo loo yihiin laakiin marka ay hal kala dareemi doonaa ilaahay rabta markii faqada laga soo noqdo qolka kale ee shaqada ku bilaaban doonta shaqo oo soo meesha ayaan u kala qaybsan doonaa burburada aan ka qayb galayna anaga ayaa u sheegi doona insha Allah qofka waan ay ahayd markii kulan ay la qaateen guddiga dhaqaalaha warshadaha iyo ganacsiga baarlamaanka Soomaaliya waxaana la filayn ugu dambeyntii arimahani loo bandhigo baarlamaanka si uu u meel mariyo. Cali Cabdulqaadir Cali, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.